لا 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 لا. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. أيها الإخوة والأخوات، waxaan soo gaarnay bishii Shacbaan aakhirkeeda. waxaa inagu soo dhawo fooda inagu soo haya bishii Ramadaan ee barakaysnayd. Allah waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo, ka faa'iidaysigeedana Ilaahay na waafajiyo tabaaraka wa tacaala. bishaasi waa jaanis aad u weyn iyo fursad aad qaali u ah nolosha ruuxa muslimka ah, kuma fududa. rabbi tabaaraka wa tacaala ummadda nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi buu ugu deeqay bishaa barakaysan iyo khayraadka dhexdeeda ku jira, oo ay ka mid tahay laylatulqadri oo qadarkeeda iyo qiyaasteeda iyo qiimaheeda qur-aanku ka sheekeeyey. haddaba bishii haddayna soo hayso, sidee baan ku qaabilaa? sideen u soo dhoweynaa? maxaa ka horeeyo loo baahan yahoon seen isugu diyaarinaa? waa su-aalaan isweydiinayna loona baahan yahay inaan jawaab u helno. ma raashiimaan uruursannaa? waxaan isku mashquulinaa inaan raashiimo iibsanno. waa arrin iska bannaan, laakiin muhiimaddu dhankaa ma aha. muhiimaddu waxa weeyaan jaaniskan rabbigaa ku siiye tabaaraka wa tacaala iyo nicmadan haddiiba ilaahay ku gaadhsiiyo, seed uga shukrin, see looga faa'iidaystaa? tilaabooyinka soo socda ayaa loo baahan yahay inaynu qaadanno intayna bishii inoo soo gelin. tilaabada koowaadi waxa weeye inaan ogaanno fursadda haddii ilaahay ku siiyo, ku soo gaadhsiiyo, caafimaad iyo nabadgelyo kugu gaadhsiiyo, oo adoon nool ilaahay kugu simo tabaaraka wa tacaala, waxaad ogaanaysaa haddaad dayacdo oodan jaaniska ka faa'iidaysanin, waa nasiib xumo, waana natiijo xun iyo caaqibo xun oo adduunkaaga iyo aakhiradaadaba saamayn kugu yeelanaya. haddaad ka faa'iidaysato sida la rabo uga faa'iidaysatana, waa liibaan weyn oo adduunkaaga iyo aakhiradaadaba saamayn ku yeelanaya. inay sidaa arrintu tahay waxaa tilmaamaya xadiidka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh, xadiid Kacb ibnu Cujra. wuxuu leeyahay saxaabigaasi, nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa maalin maalmaha ka mida saxaabadiisa wuxuu ku yidhi, mimbarka imaadda. hadal buu rabaa inuu u jeediyo. wuxuu yidhi, mimbarkii baan nimid oo waa soo fadhiisannay. markaan mimbarkii nimid buu nebigu wuxuu bilaabay inuu mimbarka fuulo. dabcan mimbarka nebigu sal alla alay wasalam 3 darajo ah. tii ugu horraysay markuu cagta saaray buu nebigu aamiin yidhi. tii labaad markuu saarayna wuxuu yidhi aamiin. tii saddexaad markuu saarayna wuxuu yidhi aamiin, oo macnaheedu yahay allahu aqbal. markuu soo degay oo kelimadii uu rabay intuu jeediyey mimbarkii ka soo degay, ayaan weydiinay buu yidhi, waxaan nihi rasuulka ilaahayow, maanta waxaan kaa maqalay waxaanan horay kaaga maqli jirin. mimbarka caadi baad u fuuli jirtay, laakiin maanta markaad mimbarka fuulaysay 3 goor aamiin 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 baan kaa maqalay. maxay ahayd ujeeddadu? markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam, markaan tilaabadii ugu horraysay qaaday oon darajkii ugu horreeya cagta saaray, ayaa jibriil baa ii yimid buu nebigu sal alla alay wasalam, malakul jibriil. markaasuu 3 farriimood ii dhiibay buuri. fariinta ugu horeysa waxaa loo dhiibay markuu darajka ugu horeeya cagta saaro tilaabadii ugu horeysay qaaday
maxay xambaarsan tahay wuxuu yidhi jibriil baa dhahay ha fogaado cid ramadaan soo gaadhay oo ramadaan dhammaaday isagoo loo dembi dhaafin kaasi ha fogaado aamiin baan idhi buuri haddaan nebi maxamed ahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii labaad markaan qaaday tilaabadii labaad buu haddana wuxuu igu yidhi ha fogaado cid adiga nebi maxameda sala allahu calayhi waaalihi wasalam magacaaga agtiisa lagu sheegay oo lagu xusay oo aan kugu salliyin kaana ha fogaado aamiin baan idhi buuri waa tii labaad markaan tilaabadii saddexaad qaaday buu haddana wuxuu igu yidhi ha fogaado ruux labadiisii waalid agtiisa ay ku gaboobeen oo ku duqoobeen ama mid ka mida agtiisa ku duqoobay oo aynan jannada gelinin kaana ha fogaado aamiin baan idhi labadii waalid baa u baahday waa daciifeen xilligii janno laga kasban lahay oo laga ducaysan lahaa bay agtiisa ku gaadheen waa dayacay oo janno kamuusan kasbanin kaana ha fogaado aamiin baan idhi ujeeddada xadiidku waxa way u fiirso ramadaan baad soo gaadhay xaaladaadii waxba iskama bedelin bishii waa ku dhaaftay adigoon wax isbeddela samaynin acmaashii aan lagugu dembi dhaafi lahaa aan la imaanin sidaasaa bishii waqtigii iyo fursaddii iyo jaaniskii kugu dhaafay waad habaaran tahay shaki male yaa ku habaaray malakul jibriil baa ku habaaray yaa aamiin u yidhi allah ha aqbala yidhi nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sayidu lmalaa'ika wa sayidu lbashar labadaasaa ducada iyo habaarka dabada isu haya jibriilna waa habaaraya nebi maxamedna wuxuu leeyahay allahu aqbal ma way kula tahay in la soo celinayo abadan horay bay iridda ka gelaysaa allana ka aqbalaya tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed ruux ramadaan u soo galay oon isbedelin oo loo dembi dhaafin kaasi ha fogaado wa ficlan waa fog yahay taa inaad marka ogaato xadiidkaa markaad xusuusatood ishordhigto mar walba isbedel baa kugu dhacaya waana mudan tahay mar walba inuusan qalbigaaga ka bixin tilaabada labaad ee loo baahan yahay inaynu qaadanno bisha soo dhowaynteeda waxa weeye in aynu ilaahay u toobad keenno oo aan soo noqonno oo wixii horay inooga dhacay aan ka qoomamoonno wixii aan dayacnay aan ka qoomamoonno qalbigeennu ka xanuunsado wixii dunuubi aan ku jirno aan ka dhex baxno go-aan aan ku gaarnay inaynaan dibdaba ugu noqonin towbad shuruudeedii wadata inaynu la nimaanno bisha ka hor maxay faa'iidaynaysaa lianna towbaddu qalbigay hagaajisaa qalbigay nuurisaa qalbigay islaaxisaa qalbigu awooddiisa iyo xooggiisuu soo ceshadaa lianna qalbiga dunuubta hallaysoo daciifisa qalbigu markay towbaddu xoojisana awood wuxuu helayaa uu ku dhaqaaqo oo daacada iyo khayraadka uu ku sameeyo qur-aankii buu macaansanayaa sadaqadii baa u fududaanaysa soonka iyo mashaqadiisa iyo dhibaatadiisuu xambaarayaa khayraadkii buu fududaysanayaa si fiican u samaynayaa laakiin qalbigu markuu hallaysan yahay waa sagsaagayaa sidii la rabay wax u samayn maayo towbaddu marka meeshii xarun tahay injinkii hawshaba qaban lahaa ayay towbaddu hagaajinaysaa sidaas daraaddeed waxaa kuu suurtagala qalbi xoog badan iyo iimaan xoog badan inaad bisha ku qaabisho wabitaali inaad khayraad fara badan kasbato ood wax weyn markaa ka faa'iidaysato allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun mu'miniintii oo idinkoo idil ilaahay u soo laabta allah u soo laabto dunuubta ka soo noqda si aad u liibaantaan u fiirso liibaantu waxay ku xidhan tahay towbadda inaad soo noqoto ood ilaahay u soo laabato dunuubta dhammaanteedna laga soo noqdo tilaabada saddexaad ee aan bisha ku soo dhowaynaynaa waxay tahay inaynu isku taxallujinno inaynu baranno bisha iyo axkaamta ku saabsan qaabkee looga faa'iidaystaa soon baa kugu soo socda soonka axkaamtiisa qaabkee loo xidhaa maxaa laga ilaaliyaa
maxaa loo baahan yahay inaad soonka axkaamtiisa barato inaad bisha qaybaha siyaabaha kala gedisanee looga faa'iidaysan kara inaad barato leanna waxa weeye in badanoo dadka sooman ka mid oo muslimiinta walil asaf waxaad arkaysaa waa dadaalayaan laakiin dadaalkoodu waa halbacaad lagu lisay علشان ما وافق سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله درينا ما بأهبا وحي الله درينا ما بأهبا مرة هدي عملك أتسمين يسوء خلافه هديقي طريق النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه أديك أمبار رفاضي وحبكه الميسيس ساس رادي النبي صلى الله عليه وسلم روحي عمل صمية عمل كان أوسن أمر كان نجي وافق سنين أو خلاف سيئة عمل كان والوسع علينا يا أبو النبي صلوات ربي وسلام عليه مركا وحا سيئنا سيادة متعب خسارين سيد ذلك يا وحنا السمين سميره سأضد وسط لغاغا أقبله وإن الأحكام تبرته وإن الأخرده وإن الدقيسته وإن الويديسه وإن الكدداشه وهذا الإله الجاهل لكو عبده وإن هذا الإله الجاهل لكو عبده أو أقامتي إيا علمك إيا علمتي إيا كتبتي بهالي كري إن هذا الإله الجاهل لكو عابدين ومركا عذر دار هالي ميس ساس ثلاثة إنه كددا له إنه علمك كصحي قادر له خاصة وحي قصابا بشا بركة سنة رمضان تانوا قضبك حقوه نبي قيمة صلوات ربي وسلام عليه حديث باكسوغا أوليه هاي وحا بدن ضد إن بدنوا ضدك كمدا وصوميه صوم كودنا كهلي مايان وحان أون إيا قاتشك أهاي وصومي انتدي واسكد دايي عبيتانك واسكد دايي قلمدي وكفو قادي لكن إنو الدالي والرفاضي وحان أهاي صومك كهلي مايان مدبا هبينكي تاغنو صلاة تاغنو عبادي سنية تاغنيدا إيا عبادة إيا صلاة أنا سوچيد وحان هين كهلي مايو وسوچيد بورددي وقتك لكن أجل كم هلي صوت معي تحت لأن اللغة تير أو عملك اللغو أقبلا متكمكين أما إخلاص يا إلهي درتي باكمك وضنك الأولي أما ما هي عمل كان موافق سر طريقي يهدي يا سنة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه لبدا مدي آفدك إيمان يسا تعالى وحيكو إيمان كرتا إلى أقوال لا رهي وميشا أد وحديك يساعد كرنس قضبك حقا اللوبة هي تلاوة حكت اللوبة هي إنه قادرنا بيش كسر دوينا وحيتا إن أينو قرشي سنو سيدي أينو بيش أغفى إذي سن له maxaa ku diyaarsan oo ku qorshaysan imse goor baad rabtaa inaad quraanka khatimto waqtigeedii ma u diyaaris maxaad xoolo diyaarisado bisha ramadaan ugu tala gashay ilan sadaqa la baxsado xilliyada ugu fadli badan bay ka mid tahay xoolo aad u diyaariso oo qorshaysay ma jiraan umra iyo taa'aad ma ku diyaarsan yihiin qiyaamka iyo salaadaha iyo wanaaggan iyo nafxaadkan iyo khayraadkan qorshe ma diyaarisay maxaa ku diyaarsan خاصة سلف رضوان الله عليه وحي أهان جيرين بشو مركي صوت وصوت كشو هؤلاء كلونا واسوف ودودين جيرين حتى كتبتا أي آخرين يا حديث يفقه أي درس يا واتوشين جيرين وحي بيه جيرين بشي قرآن كاسوك كشي مركاسا وحا لقابلي جيرين قرآن أخرس يطاعاتك كلا لقابلي مركا تخطيط يقرشو محاكيني إن الدنيا نقرشي سنت وننام سنت آخرة إننا كانس يدا إن مرة يقرش لآن إن ينقو مرة مركي صوت قلان بلها قناع السيقول لك دقاقه يا بلها قناع السيقول كلا الصعود مركي صوت قلان انتين السوق قلين كهر لوبلوت بل يا وحي على بعض دونك تشريب ملك استلقى كينا بخارة بالسماء على زود ديارنا يا شانس كانوني والبلايا قدر كأقبضا والربح هي فائدة كرمصو كفوتشسو كقاضي طيب الدونك هو مخطط شانس كانوا كمان طافو اللحظات كتهي حريف نوات كتهي من ايش قرب تلقى قوسطو الدنيا مركي تمادو لكن آخر هذا هو مهلهل آخرنا هو مهلهل سيداس درادد waxaan u baahanahay inaan takhtiid iyo qorshe ku gallo bishan saad uga faa'iideysan arimaha kale loo baahay waxa kamid ah bisha ku soo dhaweynayna
horteedna loo baahaya inaynu la nimaadno alcaziima asaadiqa go-aan qalbigaaga ka go-an ilaahayna aada la kaashatay tabaaraka wa tacaala lianna qadarka kolba go-aanka qalbigaagu yahay dadaalna aad ku darto allana aada la kaashato alla waa kuu xaqiijinaya tabaaraka wa tacaala ama waxay ka timaadaa shay aad rabtay inuu kuu xaqiiqoobi waayo ama ma aheed go-aankaagaa daciifa go-aanka qalbiga meeshaasaa wax walba ka yimaadaan inama alacmaalu binniyaat halkaasaa go-aanku ka go-a haddii daciif halkaasi dacfi ku jiro waxay saamaynaysaa shaygii inuu hirgalo haddii aadan go-aankii qalbiga intaad la timid aadan dadaalkii iyo camalkii ku darinna iyadana dee layska kaa siin maayo sunna ilahay maa camal inaad la timaado waayo haddii labada intaad isku darto ilaahay aadan kaashaninna ayadana lagu siin maayo saasay u badan tahay saas daraaddeed baa nabigeenu wuxu uhi sal alla alay wasalam احرص على ما ينفعك واستعن بالله الحرص والاستعانة إن المركز كدرنا كأنك قلبنا وإن لهرو دذلك يدنا وقت جيدا مركي لقارو وإن كدرته الله كاشته تبارك وتعالى لأنه لا حول ولا قوة إلا به تبارك وتعالى أخيرا حيالها بشأن intayna soo gelin aan ku soo dhaweynayno waxaa ka mid ah maan ku qaabilayno inaan ilaahay barino tabaaraka wa tacaala siday salafkuba ahaan jireen ridwaanullaahi calayhim sida aahaarta ku imaanaysa waxay ahaan jireen bishu intaynan soo gelin 6 biloodoo ka horraysa bisha ramadaan waxay allah weydiisan jireen inuu ilaahay bishan gaadhsiiyo allahuma balliqna ramadaan ilaahu ramadaanna gaadhsiiyo ilaahu jaaniskaana sii markay bishu soo gasho gaadhaanna oy haleelaanna dadaalka ugu badan bay bixin jireen oo way ka faa'iidaysan jireen markay bishu dhammaato 6 bilood ee ka dambaysana allah bay weydiisan jireen inuu ka aqbalo wixii dadaal iyo khayr ay bisha la yimaadeen oo fiirsa marka noloshooda tiir dhaxaadka ay ku wareegayso waa ramadaan marna allow na gaarsii marna allow naga aqbal way muhiimadda ay leedahay baad garanaysaa maxaa yeelay hal habeen oo ka mida bisha barakaysan ayaa 83 sano camalkooda ka khayr badan xaggay wax kale yaala bil kalmiya wanaagaasi ku jira ninka dayacan waa ninkii fursadaasi dhaaftay isagoo dayacay ninka liibaanayna waa midka fursadda intuu ilaahay gaarsiiyey ka faa'iidaystay mid kalena waa inuu xusuusin waxaa laga yaabaa inay noqoto fursaddii kuugu dambaysay noloshaada ramadaanku soo mara kii ugu dambeeyey inuu yahaa dhici karta ajalka gacantaada kuma jiro adiguna isuma talisid xilligaad dhiman garan maysid goobtaad ku dhimanna garan maysid sababtaad u dhimanna garan maysid hawl rabbi weeye tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed wax kaa tegay soo noqon maayo wax soo socdana maba ka warhaysid wuxuu la imaan doono wakhtiga markaa aad haysatay ku hor yaalla kaasaad saad uga faa'iidaysan lahaa loo baahanya in badanoo walaalaheena oo muslimiina ahluliimaan ah ahlutaqwa ah ahlulkhayraad ah oo bishii ramadaanee sanadkii tegay inala soomay oo cibaadaystay oo dadaalay ayaa maanta jaaniskan aan mar labaad helin dhulka ka hooseeyo qabriyada ku jira laga yaabo mid iyaga ka mida maanta haddii la dhihi lahaa maxaa lagu siiyaa inuu dhihi lahaa dib ha la ii celiyo si aan mar kale ramadaankan uga soo faa'iidaysto laakiin ma jirto waxaa dhici karta adigana ramadaankan inuu yahay jaaniskii kuugu dambeeyey oo aad ku jirto ramadaan wixii ka dambeeya dadka la qaadi doono oo safarta iyo socdaalka dheer geli doona inaad ka mid tahay dhici karto wabitaali waxaad ugu talagashaa oo u xisaabtantaa inay tahay jaaniskii kuugu dambeeyey sidaad u sahay qaadan lahayd rabbiga ula kulmi lahayd aad xisaabtaada iyo kownkaaga wax fiican u gashan lahayd hawlkuu taallo way rabbigaana kaasho tabaaraka wa tacaala saluu wasallimuu calaa khaatami alanbiyaai walmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi wasaxbihi